بسم ال... بسم الله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا. سبحانه محمد نحريسي نبتقليه كركيسا الله يالو انتاس كدب anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca aqoonta Soomaaliyeed waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idin leenahay ku soo dhawaada goobtan quruxda badan iyo xafladaan qiimaha badan oo idinkugu tala galeen gabdhihiina iyo wiilashiina aqoonta ah. ilaahay ayaa inoo dooray inaan ka dhalanno qaraabo qiimo badan oo qaarkood gutay waajibkii iyo wanaagii kaga aadanaa aqoontani, qaarna isku diyaarinaya inay madaxa inoo salaaxaan oo naga mid dhigaan ilmahooda oo kale. sidoo kale qaarna isha oo kaliya inaga fiirsada iyagoo oo maanta wax ina siin kara wax inoo awooda. waalidkeyga iyo walaalahayga waxaan aaminsanahay haddii uu aabaheen maanta dhintay in qaraawadii ay weli nool yihiin oo isku dayi karaan xitaa inay buuxiyaan booskii aabayaasheen. laakiin waxaan aad ugu murugeysanahay in agooman badan oo nala mid ah oo u baahan waxbarasho in maanta daruuf darteeda ay guryaha isaga joogaan, qaarkood xitaa aysan heli karin qarashkii dugsiga quraanka. waxaan aad u jeclaan lahaa in ilmahaasi ay kafaalad helaan. inta maanta wax haysata ay wax awoodi karta waxaan cod dheer ugu codsanayaa in ay ka mid noqdaan kafaalo qaadayaasha madjay si ilmahaasi kafaalad u helaan. waxaan nahay uwaxa dadka iyo dalka, waxaan nahay quruxdiina iyo kuwa bari aad ku faani doontaan oo idinka idin bedeli doona insha Allah. balse maanta tacab iyo waraab xoogan ayaa idinkaga baahannahay ee agoontaani u naxariisto il gaar ah ku soo fiiriya. 5 sano ka hor hooyaday waxay isweydiin jirtay sida aan ugu mid noqon lahaa ilmaha dariskeena ah oo waalidkoodu nool yahay oo wax walba oo ilmo haysta waxbarashaha noqoto wax walba ay noqoto. balse maanta hooyaday waxay aad ugu faraxsan tahay in aan ilmahaas ka fiicanahay oo aan la tartami karo asaagay. waxay markasta aad ugu duceysaa ugu mahadcelisaa dhammaan dhalinyarada madjay meel kasta ay joogaan oo heerkan isoo gaarsiiyay bacd Allah. dareenka xoogan oo reer madjay ugu abuureen wuxuu keenayaa inaan maanta ku fikiro sida aniga la ii caawiyay la ii soo garab qabtay waxbarashadayda la iiga caawiyay in aan anigana bari inta iga dambeysay dadkeygii iyo dalkeygiiba aan wax u tiri doono insha Allah. maadaama adduunyadu ay wareegto tahay maanta adiga ay ku agtaagan tahay barina qof kale ay u tagi kartaa. maraba inaan hadalkeyga ku sii dheeraado intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. aad ayaa u mahadsantihiin sidaad nooga soo qayb gasheen xafladda oo aad noo ajibteen. assalaamu calaykum waraxmatullaah.